waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo aanu qabsan lahayn in ay naga hor istaagaan dareen aan maalintaas ama saacadda aan dareemayno. sida hawl baa noo taala inaan wallaahi maanta igama hayso ama waa caajisanahay ama hawl baan dareemaya. mar kasta oo dareenka noocaas ah ama dareenka uu xukumo waxqabadkaaga iyo horumarkaaga, mar kasta oo khatar ku jirtid inaad guul gaadhid. su'aal ahaan oo kale haddii aad business ganacsi waday ama aad waxbarasho ku jirtay, kaliya maalin inaad caajistid, inaad xanuunsatid, in arrin kugu timaado, caadifadaada iyo dareenkaaga iyo niyadaada wax dhimaysa ayaa waxay kalifaysaa in aad ka hartid himiladii aad waqti badan ka shaqaynaysay. haddaba iska ilaali in aad ku shaqaysid caadifad. waxaa la rabaa inaad ku shaqaysid marka koowaad goolal. mar kasta oo aad yool leedahay, waxaa ku riixaya yoolka xaqiijintiisa. waayo yoolku sidaan horey u sheegnay waa wax xadidan oo la qiyaasi karo, oo lagu guuleysan karo, oo xaqiiqiya, oo waqti ku xadidan. waa inuu shantaas faleeyahay. mar kasta oo aad yool ku socotid, mar kasta oo aad awood u leedahay in aad yoolka ku socotid, laakiin mar kasta oo aad caadifad ku xiran tahay, waxaa kugu filan maalin xaaladdu si kaa tahay. taasna waxay keenaysaa in yoolashaadii iyo ujeedkii aad u socotay aad ka habowday ama ahsantahay.